haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo guddi uu dhawaan u saaray inay xaliyaan shaqaaqadii 25 Abriil ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay inay heshiis ka gaaraan isfadhigii magaalada waxayna ku guuleysteen dabayaaqadii toddobaadkii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada. heshiiska oo ka koobnaa 10 qodob waxaa ka mid ahaa in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisada ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro 48 saacadood gudahood, taasi oo ku hirgashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 48 saacadood. qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka, darajooyinka iyo xilalkaba aysan wax saameyn ku yeelanin qaladaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah, gaar ahaan darajooyinkooda, mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan. waxaa kaloo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhex abuuro hay-adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni, iyo in ra-iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyayaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed. waxaa kaloo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubaro ah oo kala taliya ra-iisul wasaaraha dib u habeynta ciidanka qaranka, iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed, faragelin aan lagu samayn, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb, iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay, iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ay qaataan fulinta heshiiskan. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa haddaba heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas-uul ka yihiin ciidamada booliiska. khamiistiina ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamadu waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyey in wadooyinka laga qaado jidgooyooyinkii. jimcihiina waxaa la arkayay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda. haddaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa? sidee ayaa ciidanka loo midayn doonaa? sidee ayaase dib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay weli xukumayaan taliyayaashii hogaaminayay markii ay kala qaybsamayeen? xasan xundube jimcaale waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka. waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho. horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhabaha loo wada hadlay. waxyaabaha laga wada hadlana waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay. qaybihii isku haayeen mar walbaba waa la gaarsiinayay oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafa bixinayeen. markii si wada jir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqanayn, oo murashaxiintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyeen goobta. madaxdii dowladda oo prime ministerku hogaaminayo iyo wasiiradiisa iyana way fadhiyeen. isku aragtiya waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo. isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo. wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku daya in la sameeyo waana la sameeyey. waayo qodobada qaar aynu fiirino marka qodobkan la leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasii dhacay oo in laga saaro 48 saac gudahood saldhigyadooda ay ku laabtaan. ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya? waa labada dhinac waaye. ciidan kasta oo loo keenay qalaasahan awgiis ayuu taabanayaa. marka magaalada waxaa inay kusoo noqotaa sidii ay ahayd, oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo wax alla wixii dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaas ahaana inay ka baxaana loo baahan yahay labada dhinacba. waana sida prime ministerku sheegay, ciidamadu muxaafid iyo mucaarad ma lehe ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen. wasiirka amniga xasan xundube jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka. horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyad samiin loo siiyo, waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira, haddaad si fiican u fiirisay waxyaabaha caymis baa loo geliyey wax kasta oo ay tabanayeen. waxaa loo arkay ciidan gedood ah oo fara badan. ciidanku markuu gedood yahayna hal qof oo ama amardiida sameeye ama fallaagoobay ma aha ama goostay. ciidan fara badan oo amardiida sameeya loo arkay. saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabihii ay taban kareen oo ay taban karaan. marka anigu waxaan isleeyahay markaas taasaa waxay tusinaysaa
in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan saasna loogama heri doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacaba si gaargaara loola hadlay meelaha qaar waa loo kala dab qaaday marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada ay xeryahoodii ugu noqon karaan wixii madmadow ah oo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xeeldheerayaal loo magacaabo laleeyahay tabashooyinkaas jiri kara inay sii dabagalaan oo ciidanku ciidan midaysan u noqdo laakiin mid ka mida taliyaasha ciidanka ka soo horjeeday mutakororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xalinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhaysta iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin ayuu yidhi taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka jihaan cabdulaahi xasan waxay hore la taliyo ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay bedelaada taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda horta haruuna marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka taliyaasha waa heerar kala duwan ilaa iyo taliyo unug laakiin in taliyo la bedelo waxaa ka muhiimsan aniga aan dhinaceyga isleeyahay waxa waaye iyadoo oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahna tii hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka maxaa dhihi jiray keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka marka taas haddii hal mar ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codeki ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka waxaan isleeyahay waa laga maarmaa qof in la bedelo keliya ma ahane waa in dib u eegis mise la fiiriyaa shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya taasna xal kale oo gooniya u baahan tahay marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loo guuro khubro ciidan saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqaysay inay fadhiistaan loo kurgalo mise la qiimeeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah sidee la isugu dhafi karaa ciidanka horta isku dhafka waa shay aada u muhiimsan ciidankanna isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017 haddana lagu saxiixay London May waxaa ku qeexneed in ciidanka la isku dhafo isku dhafka keliya ciidanka ma ahane oo ciidan askarta keliya ma ahane waa saraakiisha waxa si ciidan qaran loo dhiso isku dhafka waxay asal u tahay muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in loo howlgal u aadi karaan taasna dowladda waa inay xooga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeyaa askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqayn karo sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqayn karo marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed ha noqoto deegaanadii iyo howlgalada laga qabanayo laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xooga waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyayaasha laamaha amniga waxaan hordhigay wasiirka amniga xasan xundube jimcaale qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro oo taas annagu hadda qodobadii aan ku heshayna kuma jiro taasi marka waa arrin u taalla maamulka prime ministerku hogaaminayo hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin qodobadii aan ku heshayna 10 qodob bay ahaayeen 10kaa qodob kuma jirin taliyaal la bedelayo kuma jirin qodob baa ku jira qodobka 3aad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiilla duruufaha gaarka sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka saraakiishaas laga hadlayo waa kuwe imisay tiroodu dhanta lama carabaabino qof looma sheegin laakiin waa dad laga warqabi karo oo ayagu aan ka tirsanayn ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socdo aan ahayn oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray
ama markii halkan yimaadeen kadib qof ugu tegay oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelayn. laakiin hadda qof hebel iyo hebel wax la dhahaya ma jiraan, laakiin si gaara loo fiiri doonaa oo markaa farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa. gaashaanle diini rooble axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay muddo kororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan. ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen soomaaliya, waxay ka tirsanaan ciidamada soomaaliya. qof walbo mansabkii uu lahaa amba uu maaragtay ku magacaabnaa ayuu ku magacaawnana waxa uu toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaarsiinta mudane roble. waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay ku lahaayeen dowladnimada soomaaliya inta ay dowladnimada soomaaliya jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada soomaaliya jiritaankeeda inay kor ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan. cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho. cid maaragtay qof darajo ka qaadi kartana ma jirto. darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro. waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ognaha sharcigu sida uu ka qabo. qof hebel la dagaashan amba la dagaashan amba fikirkeeda uu ka hor yimidna darajo ku qaadin mayse. maaragtay qof walba marka mansabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa. difaac lasoo faarujiyena ma jirte. difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda. difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyadda dalka soomaaliya u taallo ee dastuurka kumeelgaarka ah. dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in ciidamada danab ee ay tababartay dowladda maraykanka ay ahaayeen ciidamada keliya ee ka nabad galay kala qaybsanaantii ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya, sida uu ku doodayo taliyii hore ee ciidamada danab gaashaanle cabdiraxmaan sheekh cumar jeeni qaar. aniga waa ku ammaanaya runtii shaqadaas ay qabteen iyo sida ay uga madax bannaan yihiin tiimam iyo inay guruubya galaan iyo inay u madax bannaan yihiin shaqadooda oo ay shaqadooda keliya u jeedaan. waa wax aad ii farxad gelinaya weye. waayo tiimkana waan soo xukumay. waxaan ku rahday markii dee aad backgroundkaada lagu yidhaahdo wuu hagaagsan yahay oo tiimkaadii sidaan u shaqeeyey wax aad u wanaagsan bay ku noqonaysaa. markaan mediaha ka arko laba askari ee xoogga dalka soomaaliyeed habaa waxaan ku rahaa maqal mukarama isku hortaagan. haddana waxaan media ka arkay haddana ba waxay howlgal kaga jirtaa awdheegle iyo torotorow iyo maxaan ku rahday shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. marka dhinacan xumaanta markaan xoogaa dareenkaygu aan ka xumaada labada askari is hortaagan, haddana dhinacan kale ay farxad gelinayo danab. ma la dhihi karaa maadaama ay danab ay ku sugan yihiin meel ka baxsan magaalada, taliskooduna uu ka yaro dadabnaa marka horeba, inay taasi saaciday? markaan leeyahay ka dadabnaa waxaan ka wadaa inay iskaashi dhow la lahaayeen maraykanka marka ay noqoto ciidamada kale ee xoogga dalka soomaaliya. jawaabtaada? danab taliskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa beledoogle, kan ku xigaana wuxuu ku yaalaa muqdisho. labada talis ugu waaweyn labadaa meel bay ku yaalaan. talisyada kale ee steedyada jira maxaan ku rahdaa jubbaland iyo galmudug iyo hirshabeellana iyagana waa talisya waaweyn, laakiin muhim ma aha qofku meesha inay ka dadban yahay ama maxaan ku rahdaa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya meel kasta oo dalka soomaaliya uu ka shaqeeyaa. marka uma suurtagelinayso inuu ka dadban yahay, laakiin waxaa u suurtagelinaysa qofku inuu leeyahay isaga xuduud kooban leeyahay. marka meeshii uu aadi lahaa muqdisho ama maxaan ku rahaa meel barbalayn kale oo iska loo kale ka jiro, waxay danab sida aad ka arkaysay miidiyaha ama shaqooyinkeeda banaanka ay haysatay oo ay howlgalla kusoo samaynaysay sida torotorow iyo maxaan ku rahdaa deegaanada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe bay operationna ugu maqnayd una gelaysay. marka shaqadeeda tooska abaaba waxay tahay la dagaalanka argixisada. muqdisho haddii argixisa timaado oo ka dagaalamayso gudaha muqdisho way soo gelaysa danab wayna ka dagaalamaysaa. gaashaanle cabdiraxmaan sheekh cumar jeeni qaar waxa uu ii sheegay in sifooyinka lagu soo xulo danab ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dowladda, ayna yihiin kuwo isku dhafan oo ay ku wada jiraan dhammaan beelaha soomaaliyeed. horta beelaha soomaaliyeed way ku wada jiraan. qofka soomaaliga ahina sidiisa oo danab noqonaya inuu noqdo beel hebele iyo maxaan ku dhaha deegaan hebel ma aha. waxa weeye shuruud ay leedahay baa jirta danab. shuruuddaas waxaa kasoo gudbi kara laba qof oo walaalo ah, waxaana ku dhici kara laba qof oo walaalo ah. marka muhim aha qofku gobolka ku dhashay iyo degmada ku dhashay iyo stateka ku dhashay iyo beesha ka dhashay midna muhim ma aha. laakiin muhim waxaa ah shuruuddan danab inuu buuxiyo bes. taas hadduu buuxiyo waa automatically danab waa noqon karaa qofkaasi. inkastoo ciidamada danab ay ka nabad galeen kala qaybsanaanta, haddana waxaa taliyayaasha ciidamada kasoo horjeeday muddo kororsiga ee mucaaradka taabacsanaa ka mid ahaa taliyii hore ee ciidamada danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik.
sida uu ogaaday galka baaristu. bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig laga qaaday xilka taliyanimada ciidanka Danab. bishii Disembarna waxa uu ka soo hormuuqday maxkamad military oo ku weysay eedo loo soo jeediyey oo ay ka mid ahaayeen ku tagrifal awoodeed, amar diido iyo eedo kale. ka hor intuusan maxkamadda imanina waxaa lagu xayiray wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo kala duwan oo qariyay magacooda sababo dhinaca amniga awgeed. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig oo sheegay inuusan xilligan waraysi bixinayn. taliska ciidamada Mareykanka ee Africom oo tababara ciidamada Danab waxay galka baarista u sheegeen inay ka war heleen doorka gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig uu ku lahaa ciidamadii taabacsanaa ee mucaaradka, hase yeeshee faahfaahin intaasi dheer kama aysan bixinin. ku-xigeenka afhayeenka Africom gaashaanle dhexe Christina Gibson waxay u sheegtay galka baarista inay la socdaan xaaladda Muqdisho, waxayna intaasi ku dartay in xasilooni darrada siyaasadeed ay fursad u abuurayso kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, isla markaana muranka siyaasadeed uu ka hor istaagayo hogaamiyaasha Soomaalida inay xal u helaan waxyaabaha asaaska u ah xasilooni darrada. gaashaanle dhexe Christina Gibson oo ka jawaabaysay su'aal ku saabsanayd xalka khilaafaadka dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in xalka arrimaha amniga ay tahay in la soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed si hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa ciidamadu ay dib diiradda u saaraan la dagaalanka argagixisada, ayay tiri Christina Gibson. ku-xigeenka afhayeenka Africom gaashaanle dhexe Christina Gibson waxay intaasi ku dartay in amniga dalku uu ku xiran yahay doorashooyin ka dhaca waddanka oo ku salaysan heshiiskii 17 Sebtembar. waxay sheegtay in taliska Africom uu sii wadi doono taageerada ciidamada Danab. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.